waxaa maanta si toos ah u bilaabmaday shaqadii isbitaalka Daaruraxma ee magaalada Daarusalaam kaasoo wax laga yaabo maalmahan maalin dhawaatii dhagax dhigiisa aan goobjoog u ahayn waxaan rajaynaynaa insha Allah wax laga yaabo shaqadii hadda maanta waa bilaabmatay waana socotaa waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid si fudud ku bilaabmada si fududna ku dhamaado insha Allah wax tarkiisuna uu noqdo waxtar daa'ima oo mujtamac badan ay ka faa'iidaan insha Allah waxaan rajaynaynaa bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada Puntland gaar ahaan bulshada deegaanadan iyo wixii deegaanada la halmaamo inay ka faa'iideystaan dhammaan looma kala harin dhaqaatiirtii magaalada iyo shaqaalihii magaalada ragii shaqaynayay looma kala harin waa la shaqaynayaa si guud iyo si gaar ah waa loo shaqaynayaa insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu noqdo isbitaal ka anfaca ummadda Soomaaliyeed xanuunada gaar ah oo ay ka mid yahaan infectionka galaha bawsiirka wuxuu si gaar ah takhasus u yahay isbitaalkaanu dawo dhireedka herbalka ah oo ka samaysan dhirta kuwaas oo wax kan la yiraahdo aan lahayn wax side effect ah waxaan rajaynaynaa inay noqoto meeshaan meel dad bulshooyin badan oo wax kan la yiraahdo Soomaaliyeed ay ku intifaacaan waxaan rajaynaynaa meeshaan meel wax kan la yiraahdo دكتورة halkan waxaa ila taagan دكتور Xayirdaa oo ah dhakhtarka qaabilsan deegaanadan qaliinka guud iyo daaweyntooda lana saaxiib ah dhakhtarka hadda maanta dhagax dhigaya meeshaan oo dhismaheeda wada waxa la yiraahdaa دكتور Xayirdaa ku soo dhawaad دكتورة bismillaahir rahmaanir rahiim isbitaalkan Daaruraxma horta la iskama bilaabin qorshaha uu ku bilowday waxaan fiirinay muhiimiyadda ay leedahay maadaama ay Daarusalaam tahay meel xuduudka Itoobiya iyo Soomaaliya dhexdhexaad u ah waxaan fiirinay daawooyinku ilaa Itoobiya ilaa iyo Soomaaliya waa laga isticmaalaa waxaan rabnaa Daaruraxma isbitaalkan saaka halkan laga dhisayo inuu noqdo santarkii Itoobiya rabana looga sii dhiibi lahaa kii Soomaaliya rabana looga sii dhiibi lahaa sidaa darteed wuu ku bilowday إن شاء الله أنا ما استريا ديجان هان يطلع هامبا ونسود ويننا قعنت أنا ولا صارينا إن شاء الله وحقبت كيسة ضد بدن أو إثيوبيا توجا ضد بدن الصومالية توجا سنتر بون قنطنا داوي كلوجا دي بدونا إن شاء الله. دكتور حيردا ما دام أدو أتهينن دكتور أو تخصص كله داوين كان كله محاسس قرن كده دكتور كان وسوسي هذه يو إسبتال كان وسوسي هذين كران. ورنتي marka la fiiriyo wuxuu soo siyaadiyay wax muhiim ah weeye isku mana dhawa daawada chemicalka iyo daawadan neutralka oo dhirteeni ah tan waa chemicalka iyadoo chemical lagu soo sameeyay la soo qafifiyay intaas oo dalsooma intaas oo chemical soo martay ma naloo keenay aan qaadanaa tanoo aan chemical iyo sun kale midna ku jirin dhirteeni ah wax la heli kara ma aha ما شاء الله waxaan rajaynaynaa bulshadu in badan oo kamid ah inay sidaa u fahmaan dawadan wax kan la yiraahdo waa dawo dhaqameed waa dawo wax kan la yiraahdo chemicalkeeda iyo faa'iidadeeda ay badan tahay wax kan la yiraahdo horta wax chemicalisa ma leh laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah dad badan inay sidaa u fahmaan halkaasna waxa taagan doctorkii hawshan gundhangeeda ahaayo isbitaalka meesha ka furay waxa la yiraahdaa doctor Jaan Ilaala Jecel دكتورة كسر دو ماشان ما نتي دوت وان شغلنا إذا حديقة ما عندنا واحد صعدة بلا مشي شغلة وشغلة ما عندك عنتها على وحية سيدا وحوس صعدان محاسر جينيسا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وتلاقي بقى كل شيء سكري أنا محب ما الإنسان لا ينفعسي أنا كذا يعني بنو حياله يبغى شو ده يد وش إله بقى سكري waxaan soo saarnay sidaad ka war haysaan fiyaagara dabiici aniga madqala oo laga heliyo waan sida fikirlahay waxyaalaha badan oo muhiimka ah dadku ay aad ugu hambalyeynayaan waxaan ka bilaabay man ajasa an istimtaac falyati shajaratan inda jaamac bisrعه jaamac waa aniga horta barasho wanaagsan bulshada waxaan ugu bishaareynayaa inaan soo saarnay daawooyin herbal ah oo aan lahayn side effect waxaan maadinayaa in badan وذا شغيل وناكسن وذا حرير وناكسن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال بنك ويدينا دكتور ما دام تهينين يا هوشان وحنا لقى هذا عنتك وهاي أو داود هذا سيد نظام مقاطع وحنا لقى هذا قاعدة داس
ما هيسا ما جيران dad ku dawoobay oo wixii ay raadinayaan ka helay istimtaacaas iyo wixii lamida waxaan kaloo ku weydiinaynaa doctore dawadaada waxay qusaysaa istimtaaca kaliya ama raaxaysiga kaliya mise waxyaabo kale oo u dheeriyaa jira waa cudurrada guud weeye laakiin muhiimadda waa taa reer dhan baa la badbaadinaya waa islaax usuljeeni baa soo saaray inta ugu badan oo waa taa oo aan ku caanbaxay xagga islaax usuljeynka inay sheeraha kala burburaya ilaa adduunku dee reerku waa ogtahay dee wuxuu ku fadhiya qiimo badan ku fadhiya naagtiisa oo kala taagan oo dhabarka isku jeedinaya markay daawadeeda isticmaalaan aad isku faraxsan waa dareemi kara farxadda laga helayo ilaahay baa karaamayay bini'aadanka walaqad karramnaa bini'aadana marka ilaahay wuxuu u guuleeyay xanuuno badan oo ay ka mid tahay sokortu ay ka mid tahay gaasku ka mid yahay baabasiirku uu ka mid yahay dee xagga xigta ama ragalnimo la'aanta gabdhaha laftigooda waa bini'aadan way xanuunsadaan daawooyin waxaan siinaa ninka marbar bay dee fashilka marka gabadha ku dhaco marbu ninku qori u noqonaya oo kale oo isa wax ladaa ka helayn daawooyin baanu siinaa islaaxinaya iyada laftigeeda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shaqadaan iyo ahayna bulshada waana ilaahay falligiis iyo su'aalaad soo qodiyar baan doctor waxaan kaloo ku weydiinayaa adoo raaliya dawadan waad noo sheegtay faa'iidada ay leedahay xagee lagala xiriiri karaa qofkii u baahan inuu information ka helo dawadan dheeri ah oo inta hadda ka sii faahfaahsan youtube ku keenaya barnaamijkayga doctor jaamac ilaala jecel buu ku qorayaa dr space jaamac oo ingiriis ah ilaalo jecel ku gelinaya soo halkaa waxaa kaga soo baxaya dadkii ilaahay ku buskay daawadayda oo adduunka dhan ka yimid kuwii sokorta qabay kuwii xataa xubinta taranka laga xaday oo khaqaayir oo nin waxaa ku arkaysaa youtube kale aan ugus ma lahayn jaamac markaan daawadiisa isticmaalayna xalay dab baan ku dhajiyay maxaa sababay leeyahay dab ku dhajiyay oo daadaasa hay sababtu maxay noqotay waxaa sababay wiil waxaas baan lahaa waan xanuunsaday Djibouti baan tagay Sacuudigaan tagay markaan waxba soo waayay labadiiba furay iminka daawada doctor jaamac markaan isticmaalay xalay dab baan ku dhajiyay saan meel la baastay waana ilaahay falligiis doctor aad baa maasan tahay ilaahay idinka waxaan rajaynaynaa dad badan oo u baahan hawshan inay helaan baahida ay raadinayaan insha Allah waan rajaynaynaa ilaahay idinkii aad baan ku salaanay doctor halkaan waa qayb ka mid ah qaybta wax kan la yiraahdo brokeetiga diyaarsan oo hadda shaqada lagu bilaabayo insha Allah waxaan rajaynaynaa dawadaas inay noqoto isbitaalkaas mid muntafaca oo bulshada ku soo siyaadiya waxay u baahan yihiin oo baahiyadooda khaaska ah oo ah dawa aan san effect wax dhibaato aan lahayn insha Allah taasaan waan rajaynaynaa insha Allah inay noqoto wax kan la yiraahdo meeshaan meel dad badan ay wax kan ka faa'iideystaan bulshooyinka Soomaaliyeed insha Allah kole cidii waxtar u ah oo anfacaysa adeeg un baa marxaati ka noqon doono oo wax kan la yiraahdo uma yeerin doonto markay ogaadaan qofku wax kan la yiraahdo waxa dawadan waxay saameynta ay leedahay iyo faa'iidada ay leedahay iyo khasaarada ay leedahay insha Allah dadku wax kan la yiraahdo waa iyaga garan doona maslaxadooda waan rajaynaynaa insha Allah dad badan oo wax kan la yiraahdo ka faa'iideynaya arki doontaan taanun ilaahay idankii waxaan rajaynaynaa inay noqoto guul bilaamatay oo dhamaystirkeedu iyo wax kan la yiraahdo iyo gungaarkeedu uu noqdo waqti dhow insha Allah bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay guul baan rajaynaynaa dhamaanteen iyo shaqo wanaagsan iyo dadka waxa uu yaala ilaahay inuu la garab galo shaqadooda iyo wixii u baahan yahay muntafacaada insha Allah qofka san qalbigiisa Allah u qaadaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh